بسم الله الرحمن الرحيم. ساعك وحنا كسر دوين هذول ما مهضومك الشيخ حزب الوطني أفيانك حزب الوطني عندما نفلاي مهد الجوباء وقصوا الله في صف تجد بدأ اليوم عبد الرحمن صاحب الشيخ عبدي مضح حسن الفرق يد ريال في الأفضل حزب الوطني وكسر من الوطن الإنجليزي وهلكا سفر شغله مغنى عبد الرحمن ورنتيا المشاهي ويقانو وعانا كملها حميه كل سوى الدبي حرية ذلك قد كملها إما كان مشاهد كلاوة سيدنا رسول سومالي لان وكل مترضى عالم هو قليلها وحاول أن يسولي هذا تكون يسولي هذا حسبي الوطني وحا إله وين عسى وجلها أن يقوم هذا غيلا رحمة ونوصوي ونوصو جميع أباره آدي أدبر الله إلى الحمد لله رب العالمين والله معي وحكى وهكذا من تعسيب وقدر الله قتل عبدي أو ظاهر علي وشبه بيروين ويرد بالعلماء سلام بالعلماء وعصي وحاول أن هاي حديثنا الله كوراميو إنكاسي أثركها أو هذا سياسي وين هو عدايا وكما حضور السومالي لان أهليتي أصحابي أهوتي حاسين ما في السومالي لان وحاول أن يسمري ما الله ينقصيه والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. إلهي معدي مانتا ودان هرقيسة وصول قرية نغني نبت قرينا عن كل نبت رحمة إلهي الروكينا والداي وحاولي وحلوكم مهنغو وإلهي لكم مهنغو مرات كلهم مهنغو هنا الكولكا اسمي الوطني ويسول إلهي مانتا مدارك هرقيسة سفر شقو ayaan ku maqnaa dalka Kuwait halka waxaan ugu soo qabsoomay ilaahay maadii in bulshadii ama jaaliyadii reer Somaliland ee deganeyd halkaasi intoodii badnaa ay noqdeen ama ay ka mid noqdeen taageerayaasha xisbiga wadani waxaan u soo sameynay guddiyo kala duwan oo aan ugu talagalnay inay wacyigeliyaan bulshada rag iyo dumar iyo odayaalba وحسيتو كلا نوصل سوينا سيدي أي مقالة حسبية أما قارن كبلها قبل بتشوف حسبي وكتها كلها حسبية أو غير قارن لها قال في عنا ورسول الله وحنا في تشيننا بإذن الله تعالى سبب صبرنا أنا بيش كده معطو بالبلاد الدولة إن شاء الله قارن كاسي أو كي من دولة bulshadaasi halka ku dhaqanay waa bulsho runtii isjecel oo isku duuban oo wada qabsata oo iska warhaysa inkastoo dhibaatada qurbaha ay ku nool yihiin ay iska duruufo badnay haddana waxaan uga mahad celinayaa sidii qurux badnayd ay nagu soo dhaweeyeen halka intii aan la joognay iyo intii aan kasoo marbaxaynayba waan mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضمان وسلام يا أخيات قيمها له وقابل يو بدوبيها كولكا مرضي الشيخ إيو ضمان حبلها رشقية حسب قوتني مجاي سعيد وحكلون هذه هذا السلام يا ضمان أخياتك كيف قالتي سو دوينتي إذا أنا جايو حلمان إبراهيم مهد بوبان أفيانك حسب قوتني أو كم بدي هاي
mustafe oo ka yimi isaguna shalayta ka yimi North America gaar ahaan gobolka Minnesota inta haddaan ka gudbo waxaa kaloo aad saameeya bahda saxaafadda iyo dhalinyarada activistka ay u helaan inaan runtii gudbinta wararka iyo isku xisbiga sidaa ka waraysaan anigu waxaan deganahay waddanka UK waxaan runtii ka mid ahay dee odayaasha xisbiga xagga barbaha muddada ka waday imikana intii xilkan cusub laga magacaabay ee samafalka iyo daryeelka waa markii koowaad waddanka aan imaado waxaan u yimi imika oo ugu weyn runtii sidii waaxda loo dhisi lahaa ee loo kicin lahaa isla markaana ay u gudan lahayd waajibaadkeeda loo igmaday waxaanan aad iyo aad u hambalinayaa dhammaan inta soo dhaweysay gudaha iyo dibadba waxaan rajaynayaa wada shaqayn fiican biidni illaahi tacaala aad iyo aad baan umahadsantahay sidoo kale waxaan runtii tacsi tiraayana u dirayaa guud ahaan qaranka Somaliland gaar ahaana qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka baxay wasiirkeedii qaaliga ahaa dhakhtarkeedii Dr. Cabdi Awdaahir Cali oo runtii geeri ku soo booda oo naxdin leegunta ay mataqaanaa hadashay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu sabir iyo dhammaanteen naga siiyo isaga naxariistii janno ka waraabiya runtii waa geeri naxdin loo yahay waxaana runtii yacnaa dee beryahan haldoorkii baad moodaa ummaddan inuu runtii soconayo marka ilaahay waxaan uga rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inuu mataqaanaa sakraadka ilaafiya su-aasha awoodeeda insha allahu tacaala intaa kadib waxaa runtii farxadii ah inaan la kulmay saaka jawiga Hargeysa oo bedelanaya waddanka guud ahaan oo meelba saxa ka warayso oo waddanku mataqaanaa dee roobku curtay markaa taasna runtii waxa weeyaan farxad iyo mataqaanaa runtii reereyn aan kala qayb qaadanaysaa ka shacab weynaha reer Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa aad baa mahadsantihiin